halkan u fadhinahay munaasabadan weyn ee sugu nimidnay waqti tabarka galin waxaan aad ugu mahadnaqayaa BIU-ga iyo tiimka uu hogaaminaya agaasimaha guud oo runtii markaas mashruucan aad uga soo shaqeeyay waqti badan soo geliyay runtiina waxa weeye haweeney dhararka u fadhiyay inuu heer galo xafladda maanta aynu halkan u fadhinay furitaanka aad baan ugu mahadnaqaynaa waa tiim aan ku kalsoonahay shaqada ay hayaan halkaa marka laga yimaado maanta halkan waxaynu u fadhinaa soo gudbinta iyo furidda bidhka mashruuca koroton ballaadhinta magaalada Berbera ayaynu halkan u fadhinaa runtii waxaanu aada ugu kalsoonahay anaanu hubnaa inay ku dhici doonto si daahfurnaan ah waana tan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland nagu dhaariyay naguna hogaaminayo annagu ka wasaarad ahaan guddi baa halkan ka shaqeyn doona inay qiimeeyaan oo si cadaalada ku kala saaraan kambaniyada ilaahay u qoray kulli kambani uu ilaahay u qoray ruficat al-aqlam wajabat as-suhuf inagu sababtu maanu la imanaynaa laakiinse kolka horeba samada laga qoray ilaahay baa qoray wax ilaahay sii qoray baynu ku hagaajinaynaa inaynu dariiqii ku hagaajino un baa laynooga baahan yahay haddii ummad oo dhan isku wada tagaan haddii isku wada tagaan oy damcaan inay mashruuca gacanta kaaga ridaan dee kuma siinayn haddaanu ilaahay qorin kuma siinayaan haddii ummad oo dhan isku wada tagaan oy damcaan inay kaa hor istaagaan wax ilaahay qoray kaama hor istaagayaan haddaanu ilaahay qorin markaa taa kolka hore waynayna aaminaa inteena kale maxaynu nahay markaa inaynu ku fududayno dariiqan hufnaanta ah oo aynu u cadaalad samayno ummaddaas halkaasaanu fadhinaa waanu dhaarinaynaa anagu guddiga annaga hawa walana dhaariyey iyagana waanu dhaarinaynaa inay ummadda u cadaalad falaan dhaar wax ka dambaysoo jiraayna ma jiro taa marka laga yimaado taasi waa sidaynu kambaniyadan u kala saarayna halka soo xaraysta taa marka laga yimaado mashruucu dee 4 component waaweyn buu ka kooban yahay 4taba waa laga hadlay midi waxa weeye waa ka componentiga koobaad oo khuseeya hargeysa waxaan ku rajo weynaa insha allah qodobkii hore yaalla ay shirkaduhu isku tagaan hal mid noqdaan meel fiican buu marayaa waana ku rajo weynahay inuu soo dhammaan doono muddooyinkan ama bishan nagu soo wajaan haddii la dhacdo aad bana rajo fiican uga qabnaa inuu dhammaan doono ka labaadna waxa weeye kan maanta aynu fadhino oo Boram ay soo labayso iyadana aynu furi doono bishan May dhexdeeda haddii la dhacdo saasaan filaya June ka soo bisha lixaad aynu furi doono community-ga saddexaad isagu waxa iskuuladu ahaa iyagu gabagabay ku jiraan waxaynu joognaa in fulintii ay shirkadihii ilaahay u qoray ay fuliyaan waxaan rajeynaa mashruuca saa inooga tegi doono waxaanu dardargelin waddo ka shaqeynaynay inuu mashruucani aynu fulino si mashaariicda kale inaga hor taagan yahay aynu u helno waa ognahay 50 milyan baynu ka helnay markaasi 150 milyan laakiinse waxay ku xidhan tahay sidaynu u shaqeyno waana shaqeynaynaa inta aynu joogno magaalooyinka aan hadda mashruuca ku jirin waxaan kala shaqeynaynaa inay soo galaan sida magaalada Burco iyo Ergaabo iyo magaalooyin kale waaweyn oo dhanba maaha waxaan ilowsanahay oo waxaanu iyadana gacanta ku hayno sidaan uga shaqeyn lahay iyaguna u soo geli lahaayeen marka ujeedada guud aynu u wada soconaa ee madaxweynuhu hogaaminayo waxa weeye dhammaan qof kasta oo muwaadin oo Somaliland inuu helo light jaban inuu helo koronto jaban inuu helo dhammaan waxaan ku shaqeynaynaa ka wasaarad ahaan madaxweynuhu hogaaminaya in dhammaan ay helaan ummadu koronto jaban magaalada Berbera madaxweynuhu wuxuu kaga dhawaaqay in bisha 7aad korontada laga dhigo 20 senti mashruucanina wuxuu daba socdaa 20 senti
waxaan rajaynayaa inaanu dadejino as much as kale sida ugu habboon iyagoo tiimkuna ka wada shaqeyn doona. Marka intaa laga yimaado, shalay annaguna ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaynu ka shaqeynaynaa inaynu korontada hagaajino, laydhkii la dhimo, korontadii qiimaheedii hoos loo dhigo. shirkadii Berberina 4 saacadood bay shalay ka maqnayd, waxa weeye ay korontadu ka maqnayd magaaladii Berbera. waxa la dul qaadan kara maaha. magaalada Berbera inuu ognahay in magaalooyinka ka duwan tahay, waa cimiladeedu ay ka duwan tahay. ognahay inuu qofku saacad 20 daqiiqo aanu markaasi ka maqnaan karin laydhku, ay 4 saacadood shalay ka maqnayd. runtii waxa weeye ka wasaarad ahaan iyo commissionkaba tallaabada ku habboon baan anagu qaadayna. sharciguna siiyey xeerka tamartu noo ogol yahay arrimo noocaasi markay dhacaan, sharcigu waxbuu na siinayaa tallaabo inaynu qaadi karno. commissionku inay tallaabo qaadi karaan, tallaabada waanu qaadaynaa. shacabkana annagaa uga mas-uula korontada Somaliland, iyagu waa adeeg bixiyayaal weya. waxaanu samayn doonaa guddi qiimaysa khasaarihii ka dhashay daminta leyrka 4 saaco magaalada ka maqnaa. guddi baanu u magacaabi doonaa, soona qiimeyn doonaa. wixii sharcigu ogol yahayna tallaabaanu ka qaadayna. annaguna cidna ku xadgudbayn, sharcigu wuxuu noo ogol yahay tallaabadaasaanu qaadaynaa. ummaddan annaga uga mas-uula. kolley intaa marka laga yimaado, oo mahadnaqaya shirkadaha soo xareystay birkan waktiga ay soo geliyeen. oo arkayna shadadaha iyo kartoomadu intay laaleegyihiin. insha Allah waxaan kartoomada waqti baad soo geliseen, muddo 60 cisho aad ka shaqeynayseen habeen iyo dhalaarba. nasiib wacan baan dileenahay.